kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkani wararka waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya qodobada ugu waaweyn ee daawa doontaana waxaa kamid ah wasiirkii amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo xilka iska casilay ciidamo hor leh oo ku biiray ciidanka ahlu sunna ee dagaal laga cabsi qabo inuu ka qarxo Gurceel barqad jaamac butuun oo weerar ku qaaday ra'iisul wasaare Roble khilaaf soo kala dhexgalay midowga musharaxiinta mucaaradka xiisad ka taagan gobolka Gado kadib markii ay ciidanka macallin wuxuu ku galeen xarumo muhiim ah qodobadaas oo faahfaahsan ayaa daawadayaal goordhow daawad doontaan balse daawada waxaynu ka codsanaynaa inaad channelkeena raadka wararka subscribe saartid muuqaalkana like saartid oo sii share gareysid gambaleelka furo si ay muuqaaladeena si degdeg ah kuugu soo gaaraan ciidamo hor leh ayaa ku biiray ciidanka ahlu sunna waxaana laga cabsi qabaa inuu dagaal ka qarxo magaalada Gurceel wararka naga soo gaaraya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in ciidamada fara badan ay ku biireen ciidanka ahlu sunna oo halkaasi la wareegay maalmo ka hor ciidanka ahlu sunna ayaa waxay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaq xooggan oo ay ku doonayaan inay dib kula wareegaan deegaanadii ay hore uga talin jireen dhinaca kale maamulka Galmudug ayaa dhankooda waxay wadaan abaabul xooggan ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan ahlu sunna magaalada Gurceel magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo Galmudug ka caawinaya si ay dib ula wareegto magaalada Gurceel Dhuusamareeb ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka degayay diyaarado wada ciidamo ka tirsan kuwa Gorgor iyo Haramcad waxaana laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan ciidankaasi madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu go'aan ku gaaray in dagaal lagu qaado ahlu sunna sida wararku ay soo sheegayaan waxaana fashilmay wadahadallo lagu doonayay in lagu dhameeyo khilaafka xooggan ee soo kala dhexgalay ahlu sunna iyo Galmudug xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo kolkii hore ka soo galay dhinaca ahlu sunna ayaa la sheegay inay wadeen dadaal ay ku doonayaan inay ku dajiyaan xiisada ka taagan magaalada Gurceel xildhibaanadan oo shalay gaaray magaalada Gurceel ayaa la sheegay inay la kulmeen xubnaha sarsare ee ahlu sunna oo kamid yahay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxayna wararku sheegayaan inay ku guuldareysteen inay ku qanciyaan inay magaalada iskaga baxaan madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa xildhibaanada u sheegay in ahlu sunna marka ay ka baxdo magaalada Gurceel oo la hadli doono balse ahlu sunna ayaa diiday inay iskaga baxdo magaalada Gurceel waxayna wararku soo sheegayaan inay halkaasi ka socdaan abaabul xooggan xildhibaanadan oo ku fashilmay wadahadallada ay ku doonayeen inay ku dajiyaan xiisada ka taagan Gurceel ayaa dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareeb dhinaca kale xiisada dagaal ayaa ka taagan qayb ka mid ah gobolka Galgaduud xiisad dagaal u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed ayaa waxa ay maanta ka taagan tahay deegaanka Turbi oo hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud xiisada ayaa waxa ay ka dambeysay dilal aanooyin qabiil ah oo toddobaadkan ka dhacay halkaasi iyo dagaalo soo laabtay oo ka dhacay deegaanka Turbi maalmo ka hor waxa deegaanka xiisada ay ka taagan tahay lagu dilay laba ruux oo shacab ah waxaana la sheegay in xiisada ka dhalatay dilkaasi ay maanta ka taagan tahay halkaas dadka deegaanka Turbi ayaa warbaahinta u sheegay inay dareemayaan cabsi la xiriirta in dushooda lagu dagaalamo isla markaana ay dhibaato ka soo gaarto labadii sano ee la soo dhaafay ayaa waxa deegaanada Galmudug ku soo batay colaad beeleedyada iyadoo madaxda Galmudug ay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan dagaaladan dhex maraya maleeshiyad beeleedka hubeysan ee ku sugan deegaanada Galmudug Axmed Macalin Fiqi wasiirka amniga Galmudug ayaa waxa uu sheegay inuu iska casilay xilka wasiirnimo Axmed Macalin Fiqi oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku yiri maantay waxaan madaxweynaha Galmudug u gudbiyay iska casilaadeedii xilka wasiirka amniga Galmudug kadib markii aan isla fahmi weynay qaabka loo wajahayo khilaafka isaga iyo ahlu sunna wal jamaaca u dhaxeeya ee isagu doortay wadada dagaalka iyo colaadda oo Galmudug ku reebaysa mahadooyin dambe isagoo adeegsanaya ciidamo Muqdisho laga soo daadgureeyay kuwaas oo wax tala ah mas'uuliyiinta Galmudug ama wasaaradda amniga aysan ku lahayn aniguna aan u soo jeediyay wadada wada hadalka iyo dagaal la'aantu inay ka sahlan tahay ka dhib yar tahayna kana guul badan tahay midaas iyo sidoo kale in argagixisada shabaab la dagaalankooda aan xoogga saarno una jihino guluf ka socda dhankooda ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi sidoo kale Axmed Macalin Fiqi ayaa qoraalkiisa wuxuu ku yiri wixii faahfaahin ah waxaan ku sheegi doonaa shir jaraa'id oo aan dhawaan qaban doono ugana hadli doono xaaladda cakiran ee Galmudug ka taagan fariina aan ugu diri doono waxgaradka Galmudug ee samaha jecel waxaan si guud ugu mahadcelinayaa hay'adaha dawladda Galmudug iyo madaxdooda shacabka dulqaadka badan si gaar ah howlwadeennada wasaaradda amniga iyo ciidamada qaranka iyo kuwa daraawiishta Galmudug ee aan sida wanaagsan u soo wada shaqeynay ee qaarkood ay ku sugan yihiin feesyada hore ee argagixisada lagula dagaalamayo iyo sidoo kale deeq bixiyaasha Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah oo si weyn loo garab taagnaa iscasilaada Axmed Macalin Fiqi ayaa waxay dhabarjab ku tahay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo doonaya
inuu ahlu sunno dagaal ku wajaho. Barqad Jaamac Batuun ayaa weerar ku qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. xildhibaan Barqad Jaamac Batuun oo ka tirsan xubnaha golaha wakiilada ee Somaliland ayaa isna ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ugu baaqay reer Laascaanood inay ka dhiidhiyaan tallaabadii lagu soo musaafiriyay dadkii Soomaaliyeed ee ka soo jeeday dhankan koonfurta. Barqad oo u jawaabay ra'iisul wasaare Rooble ayaa shaaca ka qaaday in mas'uuliyad weyn ay ka saaran tahay amniga Somaliland isla markaana oo dhiigoodu kala qaalisan yahay dheeman. sidoo kale waxaa intaasi ku daray in xukuumadda Soomaaliya looga baahan yahay inay wax ka qabato dhiigga shacabka magaalada Muqdisho. waa sida hadalka u dhigay Rooble waxa aynu leenahay haddii dhiigga dadka Muqdisho micno aanu ku lahayn adiga annaga dhiigga dadka Somaliland dheeman ayuu nagala qaalisan yahay ayuu yiri Barqad. sidoo kale Barqad ayaa wuxuu yiri Rooble ummadda malaha waxay u haystaan in ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo yahay balse waa ra'iisul wasaare reereed. dhinaca kale waxa uu Barqad tilmaamay in ka xisbi wadani ahaan ay aad ugu xun yihiin musaafiriinta dadka laga soo saaray Laascaanood gaar ahaan kuwa danta yar iyo dumarka. dad badan ayaa ka jawaabay hadalka Barqad waxayna qaarkood ay ku dhaliileen inuu wax ka sheego reer Muqdisho maadaama ay si weyn u taageereen guushiisa isla markaana ay taageero garab istaageen. Somaliland ayaa ku dhawaaqday in magaalo labaad ay ka bilaabayso musaafiriinta dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. taliyaha laanta socdaalka gobolka Sanaaga Saciid Cige Maxamed oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay inay bilaabayaan musaafiriinta dadka ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada Ceergaabo. amarka oo si toos ah uga soo baxay xukuumadda Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay taliyaha in muddo 15 maalmood gudahood ah lagu fulin doono. waxaana sidoo kale sheegay in ay bartilmaameedsan doonaan dadkaasi. sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka oo horey u sii diiwaan galiyay dadkaasi magacyadooda. waxaana sidoo kale sheegay in dhawaana la musaafirin doono. dhinaca kale magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa soo gaaray dad laga soo musaafiriyay dhawaana deegaano ka tirsan Somaliland. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne ayaa soo dhaweyn iyo dibadejin u sameeyay dadkii Soomaaliyeed ee laga soo musaafiriyay magaalada Laascaanood. maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku wareejiyay raashin iyo xoolo si ay ugu maareeyaan noloshooda maalinlaha ah. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dad Soomaaliyeed laga soo musaafiriyo dhul Soomaaliyeed taas oo ka baxsan dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinteena. sidoo kale gudoomiyaha ayaa ugu baaqay in shacabka reer Beledweyne in ay gurmad la garab istaagaan dadka laga soo musaafiriyay deegaanada Somaliland. deegaanada Puntland, Galmudug iyo Hirshabelle ayaa waxa ku soo qulqulaya dadkii Somaliland ka soo musaafirisay Hargeysa kuwaas oo ku wajahan deegaanada koonfur galbeed. khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay midowga musharaxiinta mucaaradka. musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa markii u horeysay ka hadlay inay dhici karto in golaha midowga musharaxiinta ay ku midoobaan hal musharax si ay ugu soo baxaan xilka madaxtinimada. musharax Daahir ayaa sheegay in marnaba aysan dhici doonin in golaha uu iska soo hormariyo musharax ay ku midaysan yihiin isla markaana waxa kaliya ah ee hadda isku haya uu yahay in doorasho u aado dalka. waxa uu sidoo kale sheegay in haddii dalka oo doorasho aado ay kala tegi doonaan. sidoo kale waxa uu sheegay in golaha ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaradka oo ujeedkooda ugu weyn uu yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho daafuran oo cadaalad ah loona dhan yahay. golaha midowga musharaxiinta ayaa inta badan ka midaysan mucaaradnimada dawladda iyo mowqifyada xaaladaha siyaasadeed. ha yeeshee arrintan ayaa sii xoojinaysa in dhexdooda oo ka jiro xifaaltan siyaasadeed oo adag. xiisad ayaa ka taagan gobolka Gado kadib markii ciidanka macallimiintu waxay ku galeen qaybo ka mid ah xafiisyada maamulka. magaalada Garbaharey waxaa ka taagan xaalad ka dhalatay kadib markii ciidan uu wato gudoomiyihii hore ee gobolka Gado Cismaan Nuur Xaaji Macallimo ay xog ku galeen xarunta degmada taas oo aad moodo inay ku kala qaybsameen saraakiisha ciidamada qaarkood. Macallimo oo isniintii sir jiraa'id ku qabtay xarunta degmada ayaa sheegay inaanu gobolku lahayn wax gudoomiye ah isagoona madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ugu baaqay inuu isagu u soo magacaabo gudoomiyaha gobolka Gado si shaqadii gobolka loo dardargeliyo. Axmed Buule Garaad gudoomiyaha gobolka Gado ayaa muddooyinkii u dambeeyay deegaan ka samaystay degmada Doolow qaybta Itoobiya waana taamida keentay in gudoomiyihii hore uu sheego in gobolku uusan lahayn wax gudoomiye ah. Korneyl Aadan Axmed Xirsi Aadan Ruufle oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolka Gado ayaa sheegay inaanay waxba ku kala duwanayn gudoomiyihii hore iyo kan maanta xilka ku magacaaban. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Gado loo soo magacaabo gudoomiye wax ka qabta. gobolka Gado ayaa waxaa bilihii ugu dambeysay ka taagneed xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysay maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya
waxayna dowladda federaalka ee Soomaaliya la wareegtay degmooyin ka mid ah gobolkaasi. Maamulka Jubbaland ayaa dhankooda wada qorshe ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan degmooyinkii ay kala wareegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana dib magaalada Muqdisho loogu soo celiyay ciidamo bilo ka hor la geeyay Gado, kuwaas oo ka qayb qaatay dagaalka ka dhanka ah maamulka Jubbaland. Guud ahaan warka aad ka daawanayseen raadka wararka daawadayaal waa inaga inta.